XG11 oo hadda la baxday golaha guurtida shirkaas oo ahaa khadka telefoonka 18 maarso sanadkan 2017 raggaasi waxay ku cawdeen madaxweyne cali khaliif galleyd baa talo naga diiday taladaas oo ahayd wadahadalka khaatimo state iyo somaliland dib u dhig waxaan ku odhanayaa odayaasha arrintaasi waa cudurdaar jilicsan raggaasi marka maanta shirka qabtay waxay halmaameen oo ka doodeen in ay talo bixin karaan laakiin go-aanka u dambeeya maamulka khaatimo state ee uu madaxda ka yahay cali khaliif galleyd uu iska leeyahay waayo iyaga ayaa dastuuri ah oo sharci ah waxaan halkan uga dirayaa marka odayaasha laba su-aalood oo kala ah madaxweynaha khaatimo state haddii aanu go-aan gaari karin oo lagu haysto talo ayuu diiday ama go-aan buu qaatay sidee baa la rabaa inuu madaxweyne u noqdo oo wax u maamulo midda labaad taladiinu ma muqadas baa ma lama dhaafaan baa taladiinu ma midaan la diidi karin baa oo mar walba ay khasar tahay in la qaato waxaan odhan karaa ujeedada shirkaasi maanta wuxuu ahaa ama salka ku hayay in khaatimo state iyo madaxdiisa la mutaxaabiyo iyo in buuqoodle lagu daadiyo dhowgi muslim dadka reer s c sida darteed dadweynaha reer khaatimo iyo maamulka khaatimo state ba waynu uga digaynaa khatarta ay qorsheynayaan nimankaas iyaga ah waxaa kaloo ku darayaa dowladda federaalka ee soomaaliyeed oo madaxda ka yahay madaxweynaha ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare cali xasan khayre waxaan ogeysiinayaa waxaad ogtihiin haddana aan idinku celinayaa mar kaloo idin cadaynayaa in gobolada sool sanaag iyo cayn ay magaalada talaxa taariikhiga ah kuliyo bishii January 2012 ay ku dhisteen maamul la yiraahdo Khaatimo State of Somalia madaxda maamulkaas waxa weeye cali khaliif galleyd oo madaxweyne ka ah madaxweyne ku-xigeen la yiraahdo Cabdulla Maxamed Hayde iyo ra'iisul baarlamaan la yiraahdo Maxamed Sheekh Umar Xasan waxa kale oo jira gole baarlamaan gole wasiiro iyo dastuur haddaba hadal iyo dhammaantii ciddii dan kale maamulka Khaatimo State oo dhan waxaan ogeysiinaynaa sida ku qoran dastuurka Khaatimo State oo ku cad iyo sida ku cadba go-aanka maamulka Khaatimo State wuxuu ka go-aa sir iyo caadba oo u xil saaran madaxda dastuuriga ah Khaatimo State of Somalia wabillahi tawfiiq. Okay, السلام عليكم magacaygu waa Ibrahim Xasan waxaan halkan ka cambaareynayaa anigoo ku hadlaya magaca beesha Khaatimo ee waqooyiga Mareykanka iyo dhammaan waxgaradka beesha Khaatimo ee caalamka oo dhan in nimankii maanta qabtay conference call-kaas ay meel kaga dhaceen jiritaanka iyo halganka beesha Khaatimo ama reerka la yiraahdo dhulbahante meel kastaba ha joogaan gudo iyo dabadba waxaanu leenahay inay ka waantoobaan xagardaamada iyo dhibaatada ay u geysanayaan ummadooda waxaa cad oo maanta halkaa ka cadaatay nimankaa sheegtay guurtida markii horena isku sheegi jiray magacii la oran jiray G11 oo waqtigiisu mar hore dhamaaday waxaa halkaa ka cad inay u shaqaynayaan Puntland inay niman boosas doonaya yihiin inay doonayaan inay mijaxaabiyaan oo wax ku doontaan iyadoo dadkii u soo halgamay Khaatimo uu nool yahay oo weli halgankii ku jiraan inay marin xabaabiyaan oo boosas ku doontaan waxaanu ka warqabnaa in qaarkood xamar tageen waxaanu ka warqabnaa in qaarkood hargeysa tageen iyagoo boosas doonaya marka waxaanu dhammaan beesha Khaatimo ee caalamka ku nool orbo iyo gudaba ogeysiinaya inaydaan nimankaa dhegaysan nimankaasi ay niman wax doonaya yihiin niman hagardaamadii aynu hore u niqinay Puntland ay inoo geysan jirtay wakiilka ay yihiin inay ka fogaadaan baan usoo jeedinaynaa meel kastoo beesha Khaatimo joogto
waxaan halkan ka taageeraynaa haddaanu nahay beesha khaatumo iyo dadka ay matasho reerka la yidhaahdo ku abtirsada beelaha sool iyo salaad iyo cayn waxaanu halkan ka taageersanaa maamulka yaga khaatumo annagaa dhisanay annagayna matalaan waanu raacsanahay siyaasaday wadaan waxa weeyaan maanta guul baa noo soo hoyatay meel fiican bay hawlaha iyagu marayaan waxaan uga digaynaa nimanka haddeer u xoogsiigtay inay ummadda waxyeeleeyaan inay ka waantoobaan war ummaddii waa bislaatay waa laydin ogaaday guursi ma tihidin ka waantooba waxaanu idin leenahay ilaahay haydinka hanuuniyo dalkiin iyo dadkiina haydinso waa ka baxay aada umaadsanta بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومدن ريخة عطبة ذلك استين جولان يقول في الفجرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان ايضين يا واحد كيبان تكدعي ايودين لمن كتير اللوي يا أخي يعيكو حظين من انقلابتي بعيسوري وانا عبارين يا هذا شيء يا هو شكل إن لو بنتي لو قال جولي أصلي لو قالي حبت ولا رامتي لما أنت حميد ضافي سوى بجرتنا سوى مغرب فتل ما يعمل الموت لي خاطب اللي داخل يلا نقدم بيننا يلا نتعصنحي يلا نعيسنحي شركة سومالان يمامك خاطمه وأنه عيسنحي دورش كل ما دين عكسته وكهرت ما دنا وحن كم خلينا مجرته وحن عين مامك شيء لما وقت بأحد وقت يجينا وانا ماضي شعبك كريدي ولا نجي بنا كسر راعة مسور راعة لما غلا أنا بدي يسن كله وقال كجاري كتاه وعن عين مامك خاطبه مجرور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول لي عبد الله عيد الجامع كاملة وربشوفته خاتم السيدة الصومالية وعنقوها الله أفقيله هي أفق وربشوفته خاتم waxaan halkan ka cambaaraynayaa shirkii ka dhacay conferencekii dhacay maanta 18 bisha waxashnimada ahaa waxaan halkan ka cambaaraynayaa nimanka G11 la odhan jiray xilligoodiina dhammaada mas-uuliyadii ay markaa hayeen wareejiyey imikana xil aanaan u magacaabin la baxay oo yidhi golaha guurtidana la yidhaah waxay isku dayeen afdimbi waxashnimo ah waxay isku dayeen inay dhabar jabiyaan ummadda sool iyo sanaag iyo cayn ee reer khaatumo waxaanu u aragnaa kuwii hore ee hareeraha aaday kuwa ka daran oo ku biiray waxaanu aada u cambaaraynaynaa mowqifka ay qaateen ee khaldan ee aan waxbana yeelayna iyaga wax yeelay in ummadda reer khaatumo iska ilaaliso iyagana lagu ogaaday haddaad guurta tihiin idinmaanu dooran idinkaasi magacaabay haddaad G11 ahaydeenna xilligiini waa dhacay xilla nooma haysa odayaal baa ahaydeen beesha ka mida talaad kula haydeen taladiina meel kale la aadeen waxaanu idin leenahay u soo biira maamulkiina oo toobad keena idinka intaasaan idinkaga baxayaa waxaan halkan taaniyad iyo bogaadin uga dirayaa anoo ku hadlaya ummadda reer khaatume ee adduunka daxaladeeda jooga maamulka yaga khaatume isteed oo Soomaaliya
uu hogaaminayo madaxweyne professor cali khaliif garayd ilaahay raallaha ka noqdo ku-xigeenkiisa gudoomiyaha baarlamaanka golaha wasiirada iyo dhammaan baarlamaanka waxaan idin leenahay khaatumo xil baa u qaadeen ummaddaa idin dooratay ummadaad hawl u haysaan waa idin garab taaganahay allah idinku guuleeyo nin iska shaqo tegay waxba idin yeeli maayo hiil iyo hooba waa idinla garab taaganahay waa idinku kalsoonahay hawshiina wata assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaan ehelka meesha ku jirta oo dhan iyo miidiyahaba waan salaamayaa. waxaan leeyahay oon cambaaraynayaa qoladii miidiyahaas anigu maana maqlayni maanta ku qabatay ee dadku ka wada sheekaynayo noo malaynaynay raggeenii madaxda ahaa ee arrinta dalku ka go-aysay arrinta dhulbahante ama deel reer khaatumaba. waxaan idin leeyahay niman yahow inaad xishootaan baa la rabay. madax baanu idiin malaynaynay aad baanu idinku hanweynayn inaad sidaa yeeshaan ood maanta khaatimo baabi'istaan mayna ahayn. madaxweynaha tan iyo taleex lasoo eryanayay ee tan iyo erigo iyo meel walba lasoo mariyay geed hoostii intuu fadhiistay 80 jidka ah ee geed hoosti fadhiistay ee dhuugi geela cunayay uu ku cunay ee roobka iyo qoraxda iyo wax walba ugu adkaystay isagoo gurigiisa maalasoota ku yaallo oo nabad qabaa intuu ka dhaqaaqay geed hoosti inuu dhulbahantay wax ka dhigo u fadhiistay ee dhibaatada u xamilay inaad ka xishootaan bay ahayd inaad u hambalgeysaan bay ahayd. kolkuu wax walba sameeyey wax walba soo bisleeyay oo hawshii oo dhan uu iskor saaray inaad maanta dhibaatadiisa ka talisaan ma ayna ahayn. inaad khaatimo burburisaanna ma ayna ahayn. waxaanu ku kalsoonahay ilaahay kor ha yeelo madaxiisa ha raajiyo madaxweynehanaga iyo maamulkanaga iyo dadka iyagoo dhan baanu ku kalsoonahay. annagoo dhan baa raacsan annagoo dhan baa u taageerayna tan iyo maalintii la magacaabay baanu u rareyn oonu taageeraynay maantana sidii baanu ugu taaganahay mana sii daynayno. idinkana waxaa idinku fiican inaydaan ceeboobin. haddase waxaan u arkaa inay maradii idinka dhacdo ceebowdeen. waxna naga hadlayn maysaan alxamdulilah. waxaad naga hadlaysaan male had naga hadlayn kartaan male. maalkiina aragnay waxaan idinkula talin lahayn boolojees intaad bixitaan oo dadkiina kusoo dhex noqotaan inaad tidaahay madadii oo raalli naga ahaada oo sidii aynu u wada taageeraynin maamulkeena aynu u wada taageerno. waxaan salaamayaa madaxdayada madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka inta ehel maamulka noo haysa oo dhan madaxaad noo saaran tihiin. annagaa idin dabsanay annagaa hawshanada idin dirsanay annagaa noo adeegaysaan annagaa idinku garab taagan waxna idinka halaabi maayo. hambal yaanu idin leenahay hawshiina wata. assalaamu calaykum anigu hadalka sii badin maayo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacayga waxaa la yidhahdaa aamino cali muuse. waxaan halkan ka cambaaraynayaa nimankii G11 isku sheegay mar hore. anigu G6 baaban ogaayo allah u naxariistee nin dhintay marba waxbay kororsadaan iminka G11 bay marayaan. haddana waabay iska bedeleen oo magac iyo guurti bay la baxeen. cid u bixisay guurti iyo cid ku magacawday toona annagu ma naqaano. dadka khaatimo usoo halgamaya usoo ordayay waa annaga. waxaan idin leeyahay niman yahow maanta shirkiinii oo dhan waan ku jiray. marka ugu horeysa waxaan ka xumay inaydin dad aad idinka idiin hadla oo idinka idin taageersan aad keensateen. dadkii kalena aad afka sharooto ka saarteen oo maanta dhan gacmuhu noo taagnaayeen oo nalala hadli waayey. horta taa waan ka xumahay. waxaan kaloo idiin sheegayaa war intaad tagteen oo somaliland hargeysa u tagteen oo barideen oo taa shirkaan ka qayb gallo oo markii aad tagteen la soo heshiiseen
oo markii dadka qaar idinku kaceen ay yidhaahdeen waxaad wadaan ma jiraan intaad shirkan oo kalaa qabateen dhinac walba u orodeen oo naga dhaadhiciseen inuu saxnaa oo uu wacnaa haddana muddo yar ka bacdi wax iska kiin bedelayba darajo doon ahaa dawladda soomaaliya ahaa wax kale aad raadinaysaan garan mayna haddana xagga kale isu rogteen 360 digrii intaad isu rogteen aad tidhaahdeen waxa cali khaliifsay idinkaa soo yeelay idinkaa soo qaatay aad iyo aad baanu idin cambaaraynayna waxaa idin fiicnayd haddaad wax diidaysaan maalintii aad soo noqoteen halkaydin intaad isugu kaayo yeedheen naqancinayseen inaad tidhahdaan shirkii waanu kasoo quusanay taad maanta sheegteen waxba sheegi mayso waxaan kaloo idiin sheegayaa maalintii cali khaliif taleex laga caydhsaday nin keliyoo la socdo raacay ma jira ilaa erigo waxaad ka duusheen garoowe wuxuu orday ilaa iyo meesha la yidhaahdo erigo iyo ballecad iyo buuhoodle iyo wirwir intaasoo meel walba isu marayay waxa wadayna waa dhulbahante dantiisa iyo wixiisa isaga ayaanu rabnaa isagaana hogaaminaya isagaanu dooranay xafidahullah waa madaxweynaha iyagii idinkuna haddii hunguri idinka soo galay maanta wixii aanu markaanu u dadaale u rafadnay islaamaha SSI dhaqaata iyo gabdhaha caruuraha korsanaya aanu dhabarka u xidhanay aanan fadhiisan aad dadaaleeda maanta halkaa ilaacbaa kasoo baxaya diidnay idinma rabno waad iskaaya tusteen xoogaa dadaa rajo idinayo intiina maanta rajadiina idinka dhacday maanta maalinta ku xigtaa shirka qabataan umalayn maayo in 20 qof idiin soo geli doonto waxaan idin leeyahay niman yahow kawaantooda waxa aad samayseen dadku qaar baa waxay yidhahdeen cali khalaf dadkiiba kalsoon waay martee dadka rag idinla mid oo idinkoo kala ah oo gobolada dhinacyada naga xiga ayaa kaxaystay dadkiinii oo lacagtooda ku kaxaystay oo wax u sheegay oo kaxaysay idinkuna xaadir baad ahaydeen haddaad kaxaysanaysaan haddii raggii nin laydinkala hoos baxay cali khaliif niman idinka idinla midii wataan oo lacag ku sasabayaan ood ka soo reebi weydeen isna kama soo reebi karo waxaan idiin sheegayaa oo aan hambalyo u diraynaa maanta madaxweynaha iyaga cali khaliif xafidahullah cabdalle cagalule ilaahay ha ilaaliyo maxamuud sheekh cumar golaha wasiirada baarlamaanka rafaaday silcay qoraxda taagan ilma adeerayaal sidaa wax lagu meel guuxumada iska daaya warxishooda oo nadaaya waxaad naga dumiseen SSC haddana weligaya idin aamini mayna nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله dhammaantii waa ini salaamaya qof kasta oo codkaygu uu gaarayo dhammaan ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba waa salaamaya waxaan rabay horta inaan nooca press conference-kan jaaliyad weynaha KPO amase jaaliyadda khaatumo meelay joogtaba waxaanu ku qabanay halkan waxa weeye inaanu ku cadayno mawqifkeena ku aadan arrimaha runtii arrimo kamid ah oo khuseeya ummadan reer khaatumo waxaan ogsoonahay walaalayaal in muddo halgan lagu jiray laakiin waxaan ku bilaabayaa hadalkayda mahmaah soomaaliyeed baa jirtay oo ahayd cimri tagay ceeb laguma sagootiyo marka runtii waxaan aada iyo aada uga xumahay in cimrigii iyo taladii iyo guurtinimadii iyo odaysinimadii iyo wixii la ogaa iyo tacliintii iyo hidadii iyo maamuuskii ummaddu ay qabeen in ceeb lagu sagootiyey magacan khaatumo wuxuu u taagan yahay inuu khaatumo yahay in insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeed khaatumo looga dhigo khaatumo wanaagsan looga dhigo badbaado looga dhigo wanaag looga dhigo qof kasta oo soomaaliyeedna iyo qof kasta oo deegaankan ka tirsanna waa inay astaanta khaatumanimadu ay ka muuqataa laakiin haddii uu qofku khaatumadiisa uu ku dhamaysto wax macnaha wax runtii noloshiisii hore u dhimaysa waxay noqonaysaa mid ku ah khaatumo ninka maasustiiday khaatumo isaga khaatumadiisa waxyeelay ummadda iyo khaatumada iyo maamulka iyo shacabweynaha reer SSC ama sool sanaag iyo cayn khaatuma state of Somalia haba yaraatay waxba ma yeelin waxaanu cadaynaynaa oo xaggan marag iyo markhaati ka nahay intii muddadii dheereyd halganka ummaddu ay ku jirtay
in nimankaasi ay ka mid ahaayeen raggii dadka horboodaya, dadkii ka shaqaynayay waxyaabo badan, haddana maanta iscadeeyey oo waxaad moodaa tareenkan midba nin ka degaaya in xilligoodii ay ka degeen maanta, oo gacantooda iyo afkoodana ku sheegeen in waxaba yaraatay ee uu maamul uusan jirin. hadalkaasina waxa weeye hadal isburinaya oo la yaab leh. ingiriisigu carabtu waxay tidhaahdaa faaqidu shay laa yucطih. afka ingiriisigana maamaada marka lagu turjumay waxay noqotay the benefit has not to offer. wax aba yaraatay ee qofka aan waxba hayn muxuu keeni karaa? qofka isagu ma isagaa ka qaadi kara authority-ga uu xaguu ka keenay? min ayna laka haada? xaggaad ka keentay inaad authority-ga dad ka qaadi kartid, adna aad authority ka siin kartid? waxaa jirtay xilli bay ahayd anigu aan aaminsanahay in nimankan guurtida magaca sheeganaya ay ka mid ahaayeen dadyowgii ugu cadcaddaa ee odaytinimo iyo wanaag loogu tixgelinayay, oo ka mid ahaa asaasayaashii hore ee khaatumo. xilligan maanta ana way wareejiyeen xilka, waxayna ku wareejiyeen sida aanu la soconno markii golo barlamaaniya loo dhisay. golaha barlamaaniguna isagaa ah mumatil shacab sida aanu fahansannahay, oo xilli kastaba la fahmayo. shacabka waxaa matalaya dadka gudaha, waxaa matalaya oo keliya waxa weeye barlamaanka xalaasha ah ee la doortay ee dadka reer SC ama dadka reer khaatimo ay doorteen. ummadda qurbajoogta ana waxaa matalaya jaaliyadahooda oo dallada weyn ama umbrellada weyn ee ay magaca la baxday khaatumo diaspora association marka loo soo gaabiyana KDO ay tahay. waxa weeye labada organization unbaa shacabka guda iyo dibad mumatilka ah ama se mateli kara kuna hadli kara afkooda. waxaan anigu aaminsanahay qof ka baxsan xayndaabka oo hadduu doono shir qabta, waxaan aaminsanahay inuu fikirkiisa noo sheegayo isagoon waxba ahayn. nimankan anigu waxaan u aqaanaa markii ugu dambeysay ay xil qabteen xilkoodu wuxuu ahaa inay ka qayb galeen, haddii laba leeyahay ay ka qayb galeen wadahadaladii. marka waxa ay yihiin keliya waxa weeye inay ahaayeen niman hore oo ka qayb qaatay wadahadaladii fayskeedii Addis Ababa. kaasuu ahaa xilkii ugu dambeeyey ay maamulka khaatumo u qabteen. xilkaana waa laga bedelay, hawshaasina way dhammaatay. ninkii xilka u magacaabay uunbaa ka bedelay, wax kaloo meesha yaallaa ma jiraan. waxaan odhan lahaa ummadda reer khaatumo ha ku baraarugto wanaagga. ummadda reer khaatumo maamulkeedu wuxuu ka shaqeeyey in nimankan guurtida ah ee walaaladeen iyo odayaasheenii ah ee laakiin gadooday, waxay u gadoodeen aan la garanaynin, in loo baaqay kor iyo hoosna loogu sheegay inay ku soo dhawaadaan wadahadallada oo maamulkooda yimaadaan, miiska wadahadalkana ay la yimaadaan. laakiin shaksiga ku gacan sayray wadahadalka waxa weeye isla guurtida nimanka la baxay. iyaga unbaa diiday, iyaga unbaana hawshaa iyada ana ka cararay. waxaan odhanayaa oo caddaynaya xilligan maanta ana caddaynaya, shirkani ma aha shir hadda la bilaabay, waa shir inqilaab ah oo kii saddexaad ah, waa fayskii saddexaad. markii koowaadna wuxuu ahaa shir lagu qabtay Nairobi. inqilaabka labaad ee la qabtayna waxay ahayd waraaq la qoray oo loo gudbiyey website-yada. kanna waa kii saddexaad, wayna ku caddahay tuhumka. ummadda reer khaatumana way ogaadeen. xaqiiqatan waxaan ilaahay u mahadinaynaa inaanu ogaanay dadka laba wajiilayaasha ah ee ummadda maxay doonay wejina ku hadlayay, weji kalena kula dhaqmiyey. waxaa xaqiiqa inay odayaasheenaasi ay iyagu ka qayb qaateen hadaladii ay ka mid ahaayeen dadyowgii saxiixay. waxaan kusoo gunaanadayaa hadalkayga oo ku dhamaystirayaa, waxaynu xaqiiqatan aynu sheegaynaa sharciyadda waxaa siin kara sida aan hore usoo sheegay shacabka guda iyo dibad baa sharciyadda bixin kara. cid kale oo sharciyad bixin kartaana ma jirto. waxaan garab taagannahay maamulkeena khaatumo ee dhisan ee golayaashiisa la garanayo, ummadda iyo international community-ga oo dhan uu garanayo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan salaamayaa dadweynaha reer khaatumo ee qurbo joogta ah ee conference-kan ku wada jira. waxaan cambaaraynayaa nimankii waaweynaa ee shirka maanta ku qabsaday, shirka conference-ka qabsaday.
horta annaka waxba idaanama idaanyeelin khaatimana waxma idaanyeelin idinkaa waxisyeelay soomaaliduna waxay ku maamaataa hal aad ninku baratay halkaa bacay maaha horta waa laydin ogaaday tuhun iyo baluubka adiya ku jira waa laydin ogaaday waxaan idin odhan lahaa rag yahow ha isku dilina dhulbahante dhiigga afraha kula jirtaan kala baxa baan idin odhan lahaa waa digniin ha isku dilina dhulbahante joojiya waxaa wadaan 10 jeeraa laydin dulqaatay 10 jeer raggu waxay yidhahdeen 3 jeer iyo 10 khalad oo aad gasheen baa laydin dulqaatay war intii miinina halkii isugu timi dan dhulbahantina yahay ma ka hadasheen war nin walba gurigaagii iyo reerkaagii aabbaha iyo hooyada aad qabtay ku dhasheen ma ka hadashay abaaraa jooga dadkii baa dhimanaya xoolihii baa ka dhammaaday maxaa uga hadli weydeen abaaraha iyo dayaca dadkiina haysta intaa u hanqal taagiysaan taga nin kale haysto maxaad ugu war cunto aanad karsanin lama cuno oo aan kuu bislaan lama cuno war maxaa u halgami weydeen maxaa halganka idinka hor joogay maxaa dhulbaanta inta la baaba'sanayay uga hadli weydeen intaa maanta markay rag soo bismaystay ka hadlaysaan maxaa uga hadli weydeen war maxaa u halgami weydeen waxaad tidhahdaan cali khaliif dalkuu xoreen waaye cali khaliif buufin ku afuufi maayo maxay haytay cadowga ku afuufi maayo waa keligii ninka 10 nin oo ciidan u keenay waa kee ninka dhaqaale ku bixiyey waa kee carra dhulbaanta ninka dhaqaale geeyey kee weeye war wax maynii sheegaa waxaa wadaan idinla aragnay waana idin ognahay inqiyaabkiinina wuu dhicisoobay mid dambena idiin hirgeli maayo ilaahay haddaad taqaaniin oo aad dad islaamatihiin oo aydna xalaal tihiin naga daaya dhibta dhib uma baahnin waa karsannahay cadow baana karsaday raggayagii baa dhammaaday dadkayagii baa dhammaaday hana karinina waanu karsannahay naga daaya dhibta waxaan salaamayaa oo bogaadinayaa oo hambalyeynayaa madaxda iyada ciska iyo sharaf kale madaxweynaha iyaga gaajooday erigoo galay la eriyaday cadow eriyaday hareeraha laga galay baan salaamaya madaxweyne ku-xigeenkaan salaamaya iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo kulli madaxda iyadoo dhan baan salaamaya allah idin ciseeyo cisiyo sharaf baa mudantihiin soomaalidu ninkun markuu geel badan leeyahay wuxuu ugu mahmaha uu waraabinayo sodolaha fulay ka facweynide waa dhumayso fadhiga adke ka facweynide ragga kan waa dhaafteene dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa ummadda reer khaatumo ee gudaha iyo dibaddaba joogta waxaan caawa shirkan aan iskugu nimid bishan 3/8/18 2017 annagoo qaaradaha kala duwan ee caalamka kasoo galnay tirada iyaduna ilaa 2,000 oo qof tahay shirkii maanta ka dhacay teleconference-ka ahaa ee qoladii G11 la baxday oo hadda madasha odayaasha magac kala sheeganaysay maanta waxay ka soo jeediyeen halka aanu ka dhageysanay waanu cambaareynayna waana ka soo horjeednaa waxaa sida ay madasha maanta ugu qabteen shirka conference-ka ee shakhsiyaad iyaga u hadla ay uga soo saareen dad 800 gaaraya oo reer khaatumana afka uga nuud saareen waa shirkaas waxa lagu qasanayay baa jira waxba idinkama hirgelayo idinkunbaa iska shifay wixii aad salka aad ku haysteen baa sheegateen wixii hadda dib dhacay oo dhan ee aanu budna ku eedeynaynin wixii wadiiqada u falay oo dhan baa tihiin waad caddaysateen maanta shirkaad ka caddaysan shaksiyaad idinka mid ah baa weliba kusii fogaaday khaatuma ma jirto adaan jirin adiga kiisaalaha adaan jirin dakhligaanu islaamaha ka ururinay deegaanada dadka khaatumi qurbaha ka haystana mediaan soo dhigayna waxa alla waxaad operation gasheen oo dhan baan ka sifeena haddiina ka waantoomina banaanka marin shaksi baan idin dul istaagayna shaksi kuwa dhibka wadana waanu ognahay ee u adeegaya calool nin kale kasoo adeegaya ee uur nin kale kasoo hadlayo shisheeye ah
khaatumo ka tegey dhulbaante ka tegey dadkii oo dhan ka tegey xayiray nin kale u adeegaya waanu ka ognahay khaatuma ma jirto wax dawladda ma jirto adaan jirin waa jirnaa waa noolnahay waa dhaqana adiga iyo kuwa kusoo difooy inaanu ka ridayna la socotaas horta kaasaasaan ugu jawaabaya dadku wuxuu yidhi waa loo kala darnaa shirka raggi watay baanu garanayna saddexdii nina mees ka qelina waa garanayna kuwa kale gaariba maaye ka waantooba casiir baad cabtay dad iyo daldoona wax kama ogid dhibaatada dadka ka daaya adeega dadkaa shisheeyaha dawlad digniin baanu kaa siinin waxaan halkan ka cadaynayna dhammaan guda iyo dibadda dadka reer khaatumo inay iska kaashadaan wixii xun ee u adeegayaan adeeg nin kale oo shisheeye ah oo aan dan wahayn khaatumo oo aan degal khaatumo dan wahayn oo aan dad khaatumo dan wahayn oo aan maamul khaatumo dan wahayn oo aan future doonayn oo doonayaan caloosha ninkaas inaanu gallo oo calool nin oo ka weynahay xagalageen waxa la qariyaa wax gunta la geeyaa ka weyn waanu ka weynahay reer Soomaaliyeed aan ku biirno aan agtagno ku biiri mayno بدنا كبير ماني يقرأ ولا وادريس هرجيس كبير مانا كورة وان تاجن ودخلنا هي أنا قلت تاجن ودخل برتا إن نمين ندورسون مين وردت كره خاطر مسكوتير سنابا كوس كدب هذا ميل فوق وقاعد اسكفوجية وحال كان كرتي عن بارينيا سيدا حن أداك معطو دعي إنا ندوك الرخات مكشفنا أو تصنو أداك قاسنا المدوى واركيني أداك غير كالوها وان دولبانتي خاتمة طورحين مركان خاتمة لا يقول دولبانتي وحكا بحسنين وأداك يوي تقلين بانكو بحينينا كيفو قاد ديقانا دبوهم اللي يشير بالوغوانيا وحبارنا كما كانت تاسنا وحانا كانت تاسنا وطلسنا شيرنا كو قبل ميسي ديتا لا أحمد وقيد هادكتين ديك كود هادينيسي نينك لو أداقيسي في ديقان والبا waxa khaatimo dhexdeeda ka taagan waxa ay la burrada xajiraya waa idinka waa operation kuna waa idinka waa fitball hadashan operation ka qaadi culuma la hadla ismaan la hadla operation kuna ada qaba oo xambarsan ay Puntland waa ku ognahay higlada ada abuuray oo wada isma wada oo khaatimo ma ay xaga inoo jeediya ala wax walba waan ku aragnay waad ka shiftay maanta waa ka shiftay ilaa ma ku ka shiftay الله أكو كشفه بتكون كم كورة جنينا كشفنتي ما أنت واقف كشفتي كيف هو نكون ساحب فرحنا قابح واليرباط هاي كل قابط هاي النجمات كان كتنا خاص كانين فرحنا قابح أرتني كتاساني وعن هل كان كدقية وعن وشيء يا أمد هختمه إني ما كان شيء لا يأكل فوق هذا وحي لما نقولنا إني هذا ختميين هاي فوق هذا وعن هل كان كبرارتني أما uga soo jeedinaya dadka adag ee reer khaatimo ee qurbaha jooga gudahana jooga maamulkoodana ku tiirsan waxna maamulkooda madax ka yihiin waxna taageeraya haday ciidan tahay haday culimo tahay haday shariif tahay haday guud koowaad tahay haday baarlamaan tahay haday wasiir tahay haday madaxweynaha tahay dadaalka waa la garab taaganay kuwada haw baqina waxaan halkan ku soo gabagabeynaya magacaygu markii hore aan waay aan ilaawi anoo Xuseen Xasan Jaamac Hayle oo jooga North America Mareykan Columbus Ohio iyaan halkan maanta kaga qayb galay dadka tiradooda 2,000 kor u dhaaftay ee arinta ka dhidiyay aad iyo aad baan idin salaamay salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wariyahana waa salaamaya bismillahir rahmanir rahim magacaygu waxa la yiraahdaa Saalax Xasan Xaaji Faarax Sultan Xaqud Duriir waxaan halkan ka cambaaraynayaa nimankii hadlayay maanta ee marada iska riday waxaan ku leeyahay sidaad noola weyneyd caqligu nooma waafaqin waxaan ku darayaa nin barciida kugu dhuftay calooshiisa ku tusta waxaan mujtamaca reer khaatimo u cadaynaya inay nimankaas heladaamo qaar kamida nagula dhex jireen inay nagu bilaabeen inqilaabka shirkii Nairobi inay wali wadaan waxaan noo sheegaynaa
in garaad jaamac garaad cali gogol u dhigay weliba iyagu codsadeen intay waceen ay yidhahdeen cali khaliif nala hadalsii wuu aqbalay cali khaliif bin xaafidullah wuu aqbalay waxaa layidhi hotel iyo diyaarad iyo tigid iyo telefoon midna laydinkama rabo maalintii shinka la joogay bay gooyeen maantana waxay ku hadlayeen waana maqlay waxaan ummadda reer khaatimo u sheegayaa waanu haynaa oo media ay ku jirtaa oo recording baanu haynaa shalay markii aad sababo tageen ee shirka soo fureen ee ka soo noqdeen kuwii hadlayay ee lahaa waanu guulaysanay khaatimo waa guulaysatay cali khaliif wuu guulaystay meel fiican baan wax ku soo maray 11 qodob gacantayadaana ku qoray cali ciise yidhi waxaa la cabdirashiid macalin faarax baa yidhi waxaa yidhi nin hadda garan maayo dee gooru kusoo biro oo oday wala abshir cawl cabdidiin intaba waxay ka marakaceen oo ku markhaati fureen oo ku dhaarteen oo shacabka ku siixiyeen annagaa qodobadan qorannay maantana waxay leeyihin waa xaaraan waxay leeyihin cali khaliif waa khiyaanoo leh shalayna iyagaa dadka ka dhaadhicinaya maantana iyagaa ceebaynaya shirkan iyagaa lahaa waa xalaal waanu soo gulaysanay maantana ceebaynaya bal ilaahay baa idinku daashee nin weyn oo office tigista ama 70 ama 80 oo digrii wata oo cilmi gaala iyo cilmi maadiiba yaqaan oo marra koraya maanta uu sheegaya marra koraya shalay baan uu sheegay xagee loo raacaa afkiina isku gowracdeen iyo carabkiina marka waxaa sanay dadka ku shubteen arabtaan maanta ka shubtaan naba kala la wasara ma dhacayso waxaa dadka ku shubteen baa ku jirta waxaa noognahay dhulkii warqadaha la geeyey ee raggii halgamayaasha geeyeen warqada ka daba geysteen oo la soo caydiyey inuu farmaajada soo caydiyey baan ognahay war waxaa dadka ku shubteen asay nagu tiraadeen sidan iyo waddadaas aynu raacaynaa goorta haddana xagga loo leexday waxa kalifay maanaan garan laakiin dadkii baa isbarteen waxna midna maydaan yeelin dadkii baa isbarteen waxna maydaan yeelin horeba waa nalagu inqilaabi jiray horeba wiil yaro cali khaliif soo ciyaarsiiyaa wuu boodboodi jiray oo wax ka dhigo yaa yaqaanay cali khaliif baa wax ka wada dhigan xaggaynu ku arki jirnay xaggaynu ka naqaanay waa aqoon-yahan baa la leeyahay aqoonta cilmigu caqli bay rabtaa cilmigu caqli buu rabaa caqli la-aan ma shaqeeyo cilmigu caqligoodu wakaa wixii intaa la soo waday ay maanta ku mutaxaabinayaan waxaan idiin sheegayaa war waxba khaatimo ma yeeli karta way dhaqaaqday way socotay wataa meel walba caalamka looga dabaaldegayo wataa cadowgeedii qiraya maanta kaad leedihiin cali khaliif somaliland buu ku birmay waata maanta somaliland baarlamaankeedii gacmaha u taagay ee ay qireen inuu khaatimo yahay miyaa dadka ka qarinaysaan miyaad wasiidada ka saaraysaan baarlamaankii soomaaliya maanta ee somaliland baa u codeeyey kaad leedihiin waa loo socdaa idinkaa u socda tii caynaba cali markuu ogaaday inaad 15 nin u qaybisay inaad somaliland la soo hadashaan oo idinla hadlaa diiday dee afkooda idinka saar caynabaa la tegay oo markaad nairobi joogtay muxuu ahaa waxaad ku hadlaysay meesha socotay 9 qodob baa soo saarteen 3na waad qaristeen qayb idinka kamida conference-kii ay la galeen guddiyada ayaa noo sheegay 3daad qaristeen cali khaliifna wuu ogaaday wuu ku jiray kii maantana wuu ku jiray oo uu idin dhegaysanayay waana recording waxaad ku hadasheen markii dambe kaad gasheenna waan idinkula jirtay ilmaada reeyaan waa isqaawiseen allah idin asturo annagu ilma ilaahay baa idin asturi kara bilaadanima asturi karo nin walbana meesha uu isdhigo ayaa lagu qabaa annagaa shalayna nidhi waa libaaxiyo madaxa saaranay maantana meeshaas sigteen baa taallaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصدر حق الدر الرئيس هذا نورد أمريكا